السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنرال كمركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتهين ورير مينيسوتا محايد كقلدن مركز مينيسوتا سديد قف أو عصب أو صوماليا أو دعوت كدوان تي لعكتي أما عنتدي عرورتا إلا قياني هدنا لنا عافماتك أيا لعك لغا قيامي وحنوغنا هاي دولد وحاي بحسا ميديكيد عافمات ليرادو تاسي أو قبلada la siiyo waxaana loogu talagalay dadka xanuunsan oo isbitaalada aan tagi karin oo jirooyinka qaba sida sokorta ama kaliyaha laga dhaqo ama dadka daroogadu intay dilatay dhaqan celin lagu sameeyo in ballamaha isbitaalada la geeyo marka kambani ayaa la sameystaa qofkaasi marka baabuur ayaad keensanaysaa markaas kadib dadkaas isbitaalada ayaad geynaysaa hadaba 8 qof oo Soomaali ah oo cusub ayaa waxa lagu soo oogay dacwad ah in ay caafimaadkaasi musuqmaasuqeen oo iyaga aan dadkii qaadin ay lacagtii iska beelgareysanayeen isla markaana ay qaadanayeen lacag dhan 2.6 milyan ayaa ku maqan dadkaasi Soomaalida hadda dacwadan lagu soo oogay xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ninka la yiraahdo Keith Allison ayaa waxa maalmadii Jimcihii dacwadan uu ka xareeyay maxkamadda ku taala degmada la yiraahdo Rice County ee gobolka Minnesota 8 qof oo Soomaalida ah dhammaantoodba isku dambi ayay ku eedeysan yihiin marka waxaad u malaysaa inay is ogaayeen oo midkoodna midka kale uusan ka qaban dambigaasi ay gacmaha ay kula jireen xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison ayaa dacwadan ku dhawaaqay maalmadii Jimcaha ee hadda la soo dhaafay waxaana uu ka xareeyay maxkamadda degmada Rice County iyadoo ay ku lug leedahay lacagtaasi caafimaadka ee lagu caawinayay dadka xanuunsan oo Medicaid programka ayaa la yiraahdo dawladda ayaa bixiso gobolada Mareykanka ayaa la kala siiyaa marka waxa qaybka ayaa la leeyahay dadkan eedeysanayaasha waxay xadeen identity-ga dadkaasi horta identity waa maxay waa aqoonsiga qofka marka maxaa kamid ah magaciisa dhalashadiisa social security-kiisa iyo sidoo kalena address-kiisa hadii ka waran qof intaad ka xaddo aad adigu wax ku isticmaasho waxay tahay qofkaasi aqoonsigiisa ayaad xaday waana mid kamid ah dambiyada ugu waaweyn ee wadankan Mareykanka laga galo identity theft waxa la yiraahdo marka waxa uu xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota uu sheegay in boqolaal aqoonsi oo dadkaasi ay lahaayeen ay xadeen dadkan inta badanna waxay dadka aqoonsigooda la xaday ay ku nool yihiin Faribault area ayay ku nool yihiin waxaana ay ku beelgareysan jireen Medicaid programka in dadkaasi eedeysan dadkaasi dhibanayaasha ah ay u qabteen waxyaabahaasi oo dadkaasi ay qaadeen isbitaaladii ay geeyeen iyagoo aan waxba u qabanin waxaana kamid ah waxyaabaha ay ku antacoonayeen inay dadkaasi u qabteen waxyaabaha kamidka waxa kamid ah in ay u sameeyeen transportation dadkaas inay qaadeen in turjubaanimo ay u sameeyeen in goobaha caafimaadka ay geeyeen ee kala duwana waxaana la soo ogaaday inaysan intaasi dadkaasi aysan u qaban marka dadkan dhibanayaasha ah ee aqoonsiyadooda la xaday waxa lagu sameeyay in labada magaalo ee mataanaha waa St. Paul iyo Minnesota ilaa iyo 50 mile ilaa iyo 60 mile oo u dhiganta 80 kilomitir ilaa iyo 96 kilomitir inta u dhaxaysa ayay ka dhax shaqeyn karaan marka hadii aad ka baxdo lacag ma helaysid waa inaad 60 ilaa iyo 50 mile inta u dhaxaysa aad ka shaqeyso inta badanna dadka dhibanayaasha ah ee aqoonsigooda la xaday waxa ay aagoodu uu yahay Faribault based homes guryahoodu waxay ku yaalaan Faribault ayay ka agdhow yihiin waxaana sidoo kale dadkan eedeysanayaasha ay arintan u ogolaanaysay in darawalada lacagtaasi loo soo celiyo ama lacag lagu siiyo hadii aysan ka bixin ilaa iyo 60 mile oo ay kaarka Medicare ku cover gareynayo sidoo kalena waxa ay sameeyeen dadkan eedeysanayaasha ah in ay dad group ahaan u qaadna ay dhahayeen iyagoo dadka shakhsi u qaaday si ay lacag fara badan u helaan arintaasina waa arin sharci darro ah marka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Minnesota ay xaq u leeyihiin in ay helaan adeeg ku filan iyadoo sidoo kalena uu sheegay in tixgelin iyo sharaftoodaba ay xaq u leeyihiin inay helaan isla markaana aan la khiyaamin waxa uu sidoo kale sheegay in dadka reer Minnesota lacagtooda canshuurta ay bixiyaan loo baahan yahay wadada sharciga ama qaab sharci ah in ay ku baxdo waxaana uu sheegay in dadkan eedeysanayaasha ee 8 qof xuquuqda dadkii adeega loo qabanayay ee dadkii canshuurta bixinayay labadaba ay ku xadgudbeen marka balka waran kambani ayaa lagu ogolaaday wadankan Mareykanka inaad furto adigoo si sharciya ku shaqeysan karo oo lacag sharciya heli kara ayaad waxa dooratay dhinaca khiyaanada inaad lacag ku raadiso arintaasina sidoo kale waa qalad
haddaba 8 qof ee lasoo eedeeyay magacyadooda ayaa la shaaciyey waxaana ay kala yihiin Nasro Aadan Taqal waxay ku eedeysan tahay hal dambi oo racketeering ah iyo sidoo kale 6 dambi oo ah identity theft inay aqoonsigii dadkaasi ay xaday iyo sidoo kalena 10 counts la 10 dambi oo ah aiding and abetting felony theft aiding and abetting waxa la yiraahdaa in qof dambi ku jira intaad aragtay aadan ka qaban laakiin ba adigu aad la gashay oo dambigii aad dhinacaada uga jirto George Floyd dilkiisii askarigii Derek Chauvin asaga dil ayaa lagu eedeeyay laakiin askartii la joogtay waxa lagu eedeeyay aiding and abetting min inaysan ka qaban oo ay ku garabsiiyeen ninkaasi inuu ninkaasi dilo marka waxay tahay adigoo dambi ku jira ayaan ku imid intii aan ka qaban lahaa kaama qaban haye oo kula galaya narta galaysa Soomaan anoo kula galaya nabad marka maahan sidaas so xadiidkii mahayn man ra'a minkum munkaran falyuqayyir biyadihi bilisanihi oo biqalbihi mahayn hadii marka intiiba aadan sameeynin oo qofkii dambigiina aadna faraha ka qaadin oo adiga aad la gashay waxay tahay marka inaad ku caawiso oo dambiga aad ka qayb qaadato waxa sidoo kale magaca labaad uu yahay Firdawsi Cali Ibrahim ayadana racketeering iyo identity theft ayaa lagu haystaa aiding inta badan dambiyada dadkan lagu haysto waa isleeyihiin xitaa waxa laga yaabaa dadkan qowsiyada qof qaarkood inay dambigooda qirtaan oo ay kuwa kale ku marqaati furaan amaba la soo helaba codad iyagoo isla hadlaya maadaama horta marka dadkan baaritaan ay kugu sameynayaan wadankan dambiga marka lagu arko hore lagama soo qabanayo waa lagu sugayaa ilaa iyo dambiga uu meesha u dambeeyso madax inuu ku qariyo ay u sugan tahay markaas ayaa lagu soo qabanaya waxa laga yaabaa in la soo helo codad ah iyagoo isdhahaya warhaye maanta ma aanan qaadin duqdii hebel ahayd ama odagii hebel ahaa ee xanuunsanaa laakiin lacagtiin waa iska qortay oo waa dirsaday codad saas xitaa in la soo helo maxkamadda la keeno ayaa laga yaabaa marka sida aragtaan dambiyadan dhammaantoodba waa isleeyihiin waxa sidoo kale ku xigo Bashiir Aadan Ibrahim racketeering identity theft aiding and abetting ayaa lagu haystaa felony theft waxa kamid ah Warfaa Cusmaan Maxamuud oo isagana sidoo kale ah waxa kamid ah Umar Cabdi Ahmed oo isagana identity theft iyo racketeering lagu haysto aiding and abetting felony theft waxa kamid ah Amal Maxamuud Budul oo iyadana sidoo kale waxa kamid ah Khaliif Cabdi Madoobe waxa sidoo kale kamid ah Bishaaro Salaad Cabdiraxmaan marka waa 8daasi qof oo dambigoodu inta badan uu isku mid yahay marka wareer Minnesota waxaan ogeyn lacagtii Freedom Our Future oo 250 milyan ee 90% dadka la soo eedeeyay Soomaaliya ay ahayn hadda arintan Medicaid-ka 8 qof dhamaantood waa Soomaali marka arintaas waa la kala shakiyay imaanaysa marka Soomaalida farbaa ku godan community badan oo wadankan u soo haajiray ayaa jiro kala duwan wali ma arkin community hal dambi oo dhamaantood ku wada heshiiyay oo qaladkaasi wada galay hada Freedom Our Future waa arkeen hada arintan waan aragnaa marka arintaasi sumcadda dadka Soomaalida ay dhibaato u soo jiidaysa marka dad fara badan oo Soomaaliya waxaan arkayay commentiyo soo qorodhayo Soomaalida ayaa ceebeynaysa horta wadankan waxay taama guud ahaanba caalamkaba qof kasta waa dambi la'aan ilaa iyo dambi lagu helo marka dadkan hadda waa eedeysanayaal wali dambiilayaal ma ahan waxaan ognahay hadda toddobaadkii saddexaad maxkamadii 7 qof oo Soomaali ah inay Minnesota uga socdo waa tii la soo bandhigay qoraallo ay isleeyihiin war hebel adiga waxaan nahay milyaneerada soo socdo cuntadan ayaanan ka taajireynaa marka wali waa socotaa marka dadkaas wali waa dambi la'aan laakiin arintan waxay tahay arin la yaab leh dadku marka waxa la leeyahay maxaa loo sheegayaa ma la qariyo arintaas waxaan ognahay qofku hadduu dambi galo ma ahan in la qariyo madaxweyne wadanka Mareykanka soo maray oo 4 sano aqalka cad fadhiyay ayaa maanta maalintii 12aad toddobaadkiisii afaraad maxkamad ku taala New York dhex fadhiya Trump maanta dacwadiisa waxa ay gashay toddobaadkii afraad waa maalintii 12aad ee Trump maxkamadda uu tagay maanta waxa maxkamadda la soo hor istaajiyay marqaati ahaan Jeff McConney oo Trump madax ka ahaa ururkiisa organizationkiisa waxa uu sheegay Trump intii aqalka cad uu joogay inuu saxiixay 9 jeeg oo lacag hash money ah lacagtaasi oo dad isaga eedeynayay uu ku aamusinayay waxaana ay lacagtaasi isku gaaraysa 315,000 iyadoo uu sheegay in Trump isaga bangigiisa qaaska accountigiisa lacagtaasi laga bixiyo uu saxiixay Michael Cohen ayuuna u dhiibay waxa uu sheegay in Michael Cohen sanadkii 2017 105,000 uu dhiibay isla markaana marka la 315,000 guud ahaan lacagtaasi isku gaaraysa 420,000 Trump maanta markale garsooraha maxkamadda Juan Merchan waa uu ganaaxay markale $1 ayuu ku ganaaxay kadib markii uu amarkii gag orderka uu jabiyay waxaana sidoo kale aan ognahay talaadii la soo dhaafay 9,000 in la ganaaxay marka hadda lacagta la ganaaxay Trump waxay gaaraysaa ilaa iyo 12,000 oo ilaa iyo $10,000 marka la isku daro amarkii maxaana garsooruhu ugu hanjabay in uu xiri doono hadii markale amarkaasi lagu soo rogay uu ku xadgudbo marka halka madaxweyne wadanka soo maray 4 sano maamulayay la maxkamadeynayo adiga oo muwaadin Mareykan marka oo aan xil dawladda ka haynin ma ahan inaan lagu maxkamadeynin sidoo kale waxa jirta in hadda jimcihii la soo dhaafay markii 8 qof oo Soomaalida dacwadda lagu soo oogayay
waxaa dacwad lagu soo oogay xildhibaan muddo ku jiray Koongareeska Mareykanka oo dimuqraadi ah magaciisa waxaa la yiraahdaa Henry Cuellar asal ahaan Mexico ayuu ka soo jeedaa waxaa xildhibaankan lagu eedeynaya isaga xaaskiisa Imelda ayaa la yiraahdaa in ay xiriir la lahaayeen bangi ku yaala Mexico iyo waliba shirkad gaaska ka ganacsata oo ku taala wadanka Azerbaijan waxa la leeyahay hadda maxkamadda ayaa la soo taagay jimcihii 100 kun oo damaanad ayaa isaga xaaskiisa lagu soo daayay marka intii u dhaxaysay sanadkii 2014 ilaa iyo sanadkii 2021 ayaa waxa la leeyahay lacag 600 kun oo laaluusha ayaa waxa uu ka qaatay dad wadamo ajnabi ah si uu howl ugu fuliyo arintaas waxa la leeyahay qof u dhaxeeyay ayaa jiray isaga iyo kambaniyadaasi sidaas darteed hadda damaanad ayaa lagu soo daayay marka halka xildhibaan oo hadda ku jira Koongareeska waxa jira sidoo kale senator la yiraahdo Robert Menendez oo isagana September sanadkii hore sidaas oo ganacsata wadanka Masar inuu laaluush ka qaatay sida baabuur dahab iyo lacag oo isagana dacwadiisa isaga xaaskiisa ay hadda wali socoto oo waliba mid kamid ah ganacsatadii la eedeysnaa uu dambigiisii qartay marka halka senator hadda ku jira Koongareeska xildhibaan ku jira aqalka wakiilada madaxweyne wadanka soo maray in hadda dacwada lagu soo oogay qaarkood maxkamadahooda ay socdaan adigana aad leedahay maxaa Soomaalida loo ceebeynaya maxaa Soomaalida kaliya loo bartilmaameedsanay qofku hadii uu dambi galo isaga ayaa isceebeeyay macnaheedu waxay tahay qofkaasi isagoo si sharciya ku shaqaysan karo qofku waxaan ognahay wadankan hadii la xiro in ay adag tahay inuu mar dambe shaqo helo sumcadiisa mustaqbalkiisa wixii soo dhan isaga ayaa ku ciyaaray dadkan hadda baasaboorada ayaa laga qaadanaya wadanka kama safri karaan dacwadooda ilaa ay ka dhamaanayso hadii dambi lagu helo shaqo dambe ay uga dhamaato because systemka ay ku jirto hadda shaqada waxa lagu leeyahay war qofkan xatooy ayaa lagu eedeeyay dambi weyn felony ayuu galaba sida darteed waxay noqonaysaa inaad shaqo la'aan noqoto mustaqbalkaadii marka adiga ayaa ku ciyaaray wadanka Mareykanka waa wadanka ugu fiican hadda caalamka laga shaqaysan karo adigoo joogo oo fursad u haysta inaad lacag xalaal shaqaysato hadii aad qaab xaraan ku raadiso adiga ayaa meeshaas isdhigay marka ma ahan in Soomaali la ceebeynaya laakiin Soomaalidu iyaga ayaa is ceebeynaya haddana Minnesota oo gobolka ugu badan ay degan yihiin ayaa haddana mar kale fadeexad kale oo Soomaali oo kaliya ay ku wada jiraan haddana dacwadan lagu soo ogeysto qof oo Soomaaliya marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi qaro idin la sida iyo nabadgelyo